hay-adda ARC ayaa cusbitaalka Hargeysa International Hospital ku soo kordhisay qalab caafimaad oo casri ah oo ay tahay markii ugu horeysay ee la keeno Somaliland. Qalabkan oo dalku baahi weyn u qabay dalka dibadiisana loo doonan jiray waxaa ka mid ah mashiinka fura xididada wadnaha ee xidhma, mashiinka plasma sterilization oo lagu nadiifiyo qalabka caafimaadka, iyo mashiin awood u leh inuu burburiyo dhagaxaanta kaliyaha ku samaysma iyo lafaha ciribta ka soo baxa, iyo sidoo kale daaweynta nabarka dadka macaanka qaba kaga samaysma lugaha, dhammaantood iyadoo aan wax qaliil ah lagu samaynin. sidoo kalena cusbitaalkan oo hay-adda gargaarka Afrika ee Kuwait hoostaga waxa uu soo kordhiyay qayb lagu sifayn doono kaliyaha oo ay yaalaan 3 mashiin oo awood u leh inay shaqeeyaan 24 saac toddobaadka oo dhan. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Maroodijeex Dr. Cabdicasiis Cumar oo isaga iyo gudoomiyaha hay-adda ARC Cabdiraxmaan Al-Mucallimi ay xadhiga ka jiraan qalabkan cusub ayaa hadal u ka jeediyay munaasabadda. waxa uu ku sheegay in qalabkan uu dalku baahi weyn u qabo, horena loogu tagi jiray dalka dibadiisa. tallaabada uu cusbitaalku ku soo kordhiyay qalabkan casriga ah ayaa waxa uu isuduwuhu ku tilmaamay inay qayb ka tahay horumarka guud ee caafimaadka dalku samaynayo. waa xaflad aynu ku furayno mashiino aynu aad iyo aad ugu baahnayn oo markii hore aynu tagi jirnay wadamada dibadda oo ay naga bixi jireen waqti iyo lacag adag. hase ahaatee maanta innaga oo aan intaaba marahayn laga yaabo inaynu ka helno meel ku jirta dhowr kiiloomitir. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay inoo keentayna mashiinada oo kale ah mashiinka wadnaha. saynu ognahay wadnaha waxa weeyaan meelaha ugu khatarsan ee emergency-ga ah oo laga yaabo haddii maanta la yiraahdo qof meel u qaada inaan laga gaarsiinba. taasi markaa waxay aad iyo aad faa'iido ugu leedahay maanta inaanu halkan ka helno. waxa weeyaan maadaama uu emergency yahay si degdeg ah loogu baahan yahay qofkii ay wadnihiisa xinjiro xidho in laga soo saaro. mashiinka labaad ayaa ah mashiinka lagu sifeeyo kaliyaha ee loo yaqaano dialysis-ka. mashiinkaas oo markii hore laga helayay dhakhtarka weyn oo quraata, bariyahan dambena aad moodaysid dadkii u baahnaa kaliyaha in loo maydhaa ay tiradoodu soo badanaysay. isaga laftigiisu waxa uu dhib badan ay dadku laga yaabaa haddii tagaan waddan kale in ay ku qabaan. tusaale ahaan oo kale in mashiinkaasi u baahanayo qofka in isbuuciiba dhowr jeer la maydho, qofkaana aanu iska bixin karin inuu meel kale uu joogo. mashiinka kale ayaa ah sifeynta dhiigga oo hadday sun noqoto iyo hadday noqoto bakteeriyadan ku badata iyo hadday noqoto wax kasta oo saameyn ku yeelanaya dhiigga qofka in laga sifeyn karaayo muddo aad u yarna lagaga sifeynayo oo siduu doctorku inoo sheegay 15 daqiiqo ah. dhammaan mashiinadaasi waxaan hubnaa ama aynu wada dareensanay inay yihiin mashiino aad iyo aad muhiim ugu ah dadkeena iyo dalkeena. maantana aynu ku faraxsannahay inaynu ka helno waddankeena hooyo. waxaan u mahadnaqaynaa cid walba oo mashiinadaas suurto gelisay in laga helo. cisbitaalkana waxaan ugu baaqayaa in uu dadkeenu maadaama oo ay iskugu jiraan dad danyar ah in laftigooga la gacan qabto oo ciddii iska bixin kari weyda iyo ciddii markaa jeebkooga hooseyso labadaba oo cisbitaalku gacan qabta hadduu ilaahay yidhaahdo. maamulkana haddaanu ka wasaarad ahaan nahay waanu kala hadli doonaa insha allahu tacaala. waxaa isaguna isla arrintaasi ku waafaqay gudoomiyaha hay-adda ee ARC Mudane Al-Mucallimi oo sidoo kalena faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay guud ahaanba howlaha samafalka ee ay hay-addu gacanta ku hayso. gudoomiyaha hay-adda samafalka ee ARC oo uu cusbitaalku hoostago ayaa sharaxaad ka bixiyay mashruucan iyo guud ahaanba howlaha samafalka ee hay-addu gacanta ku hayso oo uu sheegay inay ka faa'iideystaan dad aad u tiro badan oo isugu jira danyar iyo agoon. howlaha caafimaadka ee Somaliland oo hore u socda cisbitaalka International waxaa faan u ah in uu tan iyo bilowgiiba qayb ka ahaa. weliba waxa intaasi u dheer in uu si joogto ah u sii horumarayo una sii casriyoobayo, taas oo ina tusaysa sida ay howlaha caafimaad ee dalkani u korayaan. qalabkan cusub ee uu hadda soo kordhiyay cisbitaalka Hargeysa International ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu noqonayaa
wax cusub oo ku soo kordhay howlaha caafimaad ee guud ahaan bariga Afrika. yoolka u sarreeya ee cisbitaalada noocan ahi waa in ay u adeegaan bulshada wixii dakhli ee soo xarooda adeegyada ay bixinayaanna waxa uu dib ugu soo noqdaa howlaha samafalka. sidaasi awgeed dhinac kasta oo laga eegaba waa danta dalka iyo danta howlaha samafalka guud ahaan. aniga oo ku hadlaya magaciina dhammaantiin waxaan halkan uga mahadnaqayaa hay-adda caalamiga ah ee Al-Raxma ee Kuweydiga oo si joogto ah uga qayb qaata dhammaan mashaariicda horumar iyo samafal ee dalkan. waxa kale oo aan u mahadnaqayaa xukuumadda Somaliland oo iyaduna daryeesha ilaalisana xarumaha samafal waayo waxa ay si guud ugu adeegaan dalka. لأنها تخدم البلد بشكل عام. dhinaca kalena waxaa munaasabada daafurka qalabkan casriga ka hadlay maamulaha guud ee cusbitaalka Hargeysa International Hospital Dr. Yaasir Darwish. dhakhaatiirta cusbitaalka ee qaybaha uu qalabkan cusub khuseeyo ayaa marti sharafta munaasabada joogtay sharaxaad dheeraad ah iyaguna ka siiyay sida uu qalabkan u shaqayn doono iyo waxtarkiisa, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Dr. Marwan Kahul oo wadnaha ku takhasusay iyo Dr. Cala Ramzi oo xanuunada kalyaha iyo kaadi marayka qaabilsan. اليوم إن شاء الله إحنا على موعد مع maanta waxaynu furaynaa qaybo cusub oo hay-adda samafalka ARC ay ku soo kordhisay Cisbitaalka International. qaybahan waxaa ka mid ah qaybta wadnaha oo la keenay mashiinka fura xididada xidhma iyo sidoo kale qaybta meedhista kelyaha oo ah qaybtii ugu horeysay ee cisbitaalada gaarka loo leeyahay la keeno. waxaa kaloo aan soo kordhinay qalab ku cusub bariga Afrika oo dhan kaas oo ah intervention radiology. waa qalab muhiim ah oo qabanaya adeegyo ay ka mid yihiin daaweynta nabarada ku sameysma lugaha dadka macaanka qaba. waxa kale oo qalabkani ka hortagaya in lugta la jaro. waxa kale oo aanu keenay mashiinka nadiifinta qalabka caafimaadka oo ah kii ugu casrisanaa bariga Afrika oo dhan. dhammaan cisbitaalada wadanka waxa aanu ula diyaarnahay inaanu qalabkooda caafimaad ugu nadiifino mashiinka plasma. استعداد لعمل هذا بالمجان إن شاء الله. maamulaha cusbitaalka Manhal mudane Maxamed Cabdisalaan oo marti sharafta ka mid ahaa ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu hore ugu qaaday cusbitaalka Hargeysa International Hospital. munaasabadan waxa iyaguna hadallo dhiirigelin u ah cusbitaalka iyo kelmado bogaadinaba ka jeediyay gudoomiyaha hay'adda Geeska Afrika Sheekh Maxamed Cali Geedi, Salaadiin Culimo oo ka mid yahay Sheekh Cabdiraxmaan Axmed iyo marti sharaf kale.